بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha iyo dhalinyarada reer Gabiley haddaan nahay xisbiga wadani iyo waayeel iyo cuqaal iyo salaadiinba reer Gabiley waxaanu si xoog oo aan xad lahayn ugu mahadnaqaynaa sidii karaamada lahayd ee sharafta lahayd ay u soo dhaweeyeen waftiga uu hogaaminayo murashaxa madaxweynaha ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro aad iyo aad baa u mahadsantihiin gudoomiye halkani waa Gabiley waxaan u sheegaynaa waftiga sharafta leh reer Gabiley waa dad aqoon leh oo Soomaaliland oo dhammaan ay taqaanaa aqoonteeda dalkana halkan badan bay u soo galeen halkankay u soo galeenna muu ahayn hebel baanu jecelahay iyo hebel baa ay u shaqaynayeen muu jirin waxay doonayaan mustaqbal waxay doonayaan dalkoogu inuu hore u maro waxaanu ugu horumari karaa waa midnimo qaran ma aha anaa reer hebela halkankii aa gasheen reer Gabileyow waxaynu u wadnaa maanta intaa u soo halgamayseen in qarankeennu dhismo qarankeenna haddii qabyaalad la geliyo weligii yaa lii dhismi maayo halkaa aynu maanta joognona waynu ka hoosaynaynaa cidna abaal loogu dhigan maayo waxaan ku qasbannahay intaynu qabyaaladda meel iskaga dhigno inaynu eegno ayaa tartamaya ayaa dalkan horumar gaadhsiin kara ayaa aqoonteed leh ayaa dalkan iyo dadkan wax u qaban kara reer Gabileyow maanta aqoonteedii iyo arrimihii dibaddoo meel walba maanta aan ka xidhanno aad ogtihiin dekadii berbere waa ogtihiin sicir bararkii waa ogtihiin hadday dawladda maanta jirtee kulmiyo iyo xisbigeegu ay wax ka qabanayaan sicir bararka maanta jiray wax ka qaban lahaayeen waad arkaysaan waxay yihiin godkii shalay laynaga qaniinay aynu tobanka goor ku noqonnay ee aynu u codaynay halkuu inagu riday waad arkaysaan walaalayaal waxaan boqolkiiba boqol hubaa anoo eegaya aqoontiinna iyo halkanka dalkan u soo gasheen inaad dooran doontaan xisbiga wadani soo sidaa ma aha waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha ku soo dhowow madaxweyne ku-xigeenka soo dhowow